أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام لله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله إله بمهضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعليه له وأصحابه أجمعين. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء حق وسحق بادلا إن كان بادلا سهورا إن كان بادلا سولا. إلهي baa mahadle. Ilaahay baa subxaana watacaala qadaray inaan halkan soo galo, in halkan aan ka isoo sheego videogan soo duubo maanta ama clipkan aan soo duubo. intaanan u gelin qodobada clipkaygu uu daaran yahay maanta, waxaan rabaa in ilaahay subxaana watacaala aayaddan markay kusoo degeysay maka, rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu maka qabsaday, kufaartiina uu ka qabsaday, kadib asnaab fara badan buu ugu yimid oo asnaabtii buu daadiyey. horena waan usoo sheegay oo kilibyadeeda hore inay ku jiraan baan jecelahay. waxaa markaa uu usha ku qabtay asnaabihii la caabudi jiray berigaasi, gaalada reer banu haashim, weliba reer qureesh qeyb ka mida oo ay inta badan ba lagu caabudi jiray, dhammaanba ay kufaartu caabudi jireen. kadibna asnaabtiibuu sidaa usha ugu riixay, wuxuu yihi wajaa xaqa. markaa waa markii la burburiyey asnaabta ay maka furteen, rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtu ay furteen. marka wajaa xaqa, suuradaas wajaa xaqa, hadduu xaqu yimaado, wasaxaqa baadila, baadilku wuu tagaa. ina kaana baadilu suulaa, kaas waa mid baadilku wuu tegay oo mid dhammaanaya ayuu noqonayaa weeyaan. marka waxaan markaasi uga jeedaa, wax kasta ahaado, aayadda si kasta oo fasilaadeedu waa sidaasi, laakiin waxyaalo badan bay hoos imanaysaa. waxaweyaan waxay xambaarsan tahay iisoo sheeg xikmad robaniya oo aada u weyn bay xambaarsan tahay. waxay xambaarsan tahay dulmiga in la suurin kara ay xambaarsan tahay. laanno ummad hadday meel iskugu timaado dulmi ku heshiiyaan, in dad la dulmiyo, ummaddaasi ummad dhisanta maaha. marka waxaan usoo noqonayaa qodobadaydii baan usoo noqonayaa, oon rabaa inaan mid u dul istaago. maanta wuxuu daaran yahay iisoo sheegeena barnaamijkan shirarkii jaraa'idii horaan qaban jira waa ka duwan yahay, laakiin kan waxa uu markaa daaran yahay waa halganka. okay, halganka yaa halganka dabafur ku ah. halganka yaa dabafur ku ah. halgan waxaa la idhaha ummad hadday meel degan tahay, waxa weeyaan system iyo nidaam iyo waxbay ku heshiiyaan. runtii waxa wanaagsan in la qeexo. waxaan markaa qodob baan u dul istaagayaa. qodobkayga hore, halganka cidda iisoo sheeg ku ah, oo aan u bilaabay kuwa hore, kuwa la yidhaaha iisoo sheegana saadshadka, amase loogu magac daro loo yaqaano kenomaal baa jira, horena u jiray. waxaa kaloo markaa daaran yahay, waxaan kaga hadlayaayoo kale niman ka mid ah oo waxaa la yidhi, soomaalidu waxay tiraahdaa oo gabay baa ahaa, baadida nin baa kula doondoono daalna kaa badane, aan sana doonayn abid daayin inaad hesho daayin abidkeeda. rag baad jecel oo qalbigoogu ku jiraa in waxay kula raadiyaan, laakiinaan daacad ay ka ahayn, oo doonaya, ka dhigtay caado, ka dhigtay
ku suntan inay ku qaraabtaan waxa la yidhaaho qabiilka, oo ku qaraabta qabaa'il doonaya markaasi dadka, laakiin ay yihiin nimanka makaaniisanka ah ee la doonaya in lagu kala furfuro dad ilaahay meel dejiyey oo ummad ah oo unkan oo intaasoo qarni soo deganaa in maaragtay lagu kala furfuro, oo marka uu doonayo cadowgu inuu ku kala furfuro. waana xaaraan, shay xaaraana wey. qofkaasi waa qof xaaraan quuto ah. qofka waxa weeyaan arrintaasi waxaanu ka soo hadlay habeen dhoweyd baan ka hadlay, oo siyaasadda iyo soomaalidu qaabka ay u isticmaasho iyo adduunku siduu yahay iyo diinta islaamku siyaasadda si ay u qabto. siyaasaddu horta taas markaa anigoo maaragtay aan ku daalayn oo wax yar baan idiga taabanayaa ee ay tahay siyaasaddu waxa weeyaan waa mabaadi loo dhisay ummad meel degan ay dejisteen. mabaadi'daasoo ka duulaya markaasi laba unbay u noqdaan, ama kuwa cilmaaniya ama kuwa islaamiya ay noqdaan. keenani waa mid islaam, maadaama aan ummad islaama nahay, dadka soomaaliduna 100% islaam tahay, ma aha mid cilmaaniya. mabaadi ama marka la sameynayo waa waxa la yidhaaho constitutionka ama dastuurka ama qawaaniinta ay ku dhaqmayaan dadkaas ee lagu xukumayo xukunkaasi dowladda ay ku xukumayso. qawaaniintu waa inuu ahaadaa, maadaama 100% islaam nahay, dad qawaaniin maaragtay soo sheeg ku socda. laakiin qawaaniin reforming inta lagu sameeyo qof maaragtay lasoo maro dabadeedna la waaridayo wadano qaarkood dana intay maaragtay dana gaara kale intay dhaqaalo siiyaan maamulkaasi, kadibna ay doonayaan waxa wadanadooda ka jira in loo soo waaridaa. waxa weeyaan mabaadi'daasi mabaadi ku salaysan ama sax ah ma noqonayaan. marka mabaadi siyaasaddu waa mabaadi ka duulaya in meeshaas dad degan qoomiyad meel degani ay dhistaan, laguna maamulo. waa system oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam risaalada markii ambiyada loo soo dhiibay ilaahay baa subxaanahu watacaala u soo dhiibay. marka waxa weeyaan qawaaniintaasi ilaahay uu ogol yahay ee diinta islaamka ee la wadaya systemka in lagu wado ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay, saas weeyaan. marka bolisiga marka la sheegayo de islaamka laga soo dhex saaray, ama politicalka ama siyaasadda, sidii doonaha loo dhigo. horena arrinkaas waan uga soo hadlo maaragtay kilibyadeeda kale aad ka heleysaan, iyada halkaasaan kaga baxaya. laakiin keeno maal iyo waxaan ku soo noqonayaa barnaamijkii ahaa halganka galbeedka gobollada waqooyi yaa dabafur ku ah. waxaa dabafur ku ah nin kasta oo markaasi siyaasad hunguri ku shaqaynaya oo doonaya iska dhigaya siyaasi la adeegsanayo gocaso ah ayaa maaragtay dabafur ku ah. marka halganka yaa dabafur ku ah ay weeyaan ayuu halku dhigiisu yahay. waayahay marka halganku, marka maadaama aan halgan ka hadlayno waa in aan qodobaynaa. oo qodobka koobaad, halganku muxuu ka yimaadaa, muxuuse yahay? halgan waxaa la odhan karaa qaybo badan baa loo dhigi karaa. ummad maaragtay waddan kale loogaga soo duulay oo gumaysi uu haystay. gumaysigana horaan u sheego laba uu qeybsan yahay. waa gumaysi sokeeye iyo gumaysi shisheeya la ydhahaa, iyo gumaysiga dahsoon. gumaysiga dahsoon waxa weeye waa sida wadanada Jabuuti marka lagu haysto. waxay Faransiisku markii uu qabsaday wadankaas, uu qabsaday wadano badan buu ku hayaa, keligood maaha Afrikada ah. oo Faransiisku waxaa wadanada Afrika u badan ee 55 dal ah. 55 dal ayaa wuxuu sameeyey maaragtay inta ugu badan Faransiisku isagaa gumaystay. wadanada qaarkoodna ciidamadoodii oo dhan wuu kala baxay. laakiin si siyaasadda dalkoogu kama maqna, mustambeedku ugu jiraa. macnaha waxaa la yidhaha mustambeedka ayuu ku jiraa oo marka dambe soo galaa.
sida marka wadanada qaarkood sida ingiriiska wadanadu maartay oo had iyo jeer uu sheegtay la yidhaho waxa weeyaan barnaamijka micnaha la yidhaaho commonwealthka ugu daray wadanada micnaha ciyaarahaas la ciyaaray la yidhaho commonwealthka iyo wadanadii ingiriisku guumaystay baa ku yimaada micnaha wuxuu diidayaa tafiirtii aasaartii uu lahaa inay meesha ka baxaan wadanada uu guumaystay ciyaarahan oo markaasi uu sheegto aasaartii buu looga jeedaa laakiin dadka qaarkoodna waxay aaminsan yihiin dhaqaalo badan lagu bixiyey dhaqaalo badan micnaha lagu kala helo laakiin aasaartii weeyaan waa siyaasad bay ka mid tahay waa siyaasadaha oo maaragtay guumaystayaashu ku dhaqmaan okay waa yahay faransiisku marka waa taa faransiiska ee Djibouti isagu waxa weeye waa dahsoon waa taasaa la yidhaahaa siyaasadda dahsoon ingiriiska iyo faransiiska ay ku dhaqmayeen sida Djibouti oo kale micnaha waayo ilaa imika ciidamadiisa jooga saldhig ciidan buu ka dhigtay wuu degay wuu ilaaliyaa wixii arrimaha dibadda ah ee kaga yimaada ayuu isagu ka difaac u yahay dagaalka dibadda kaga yimaada difaac u yahay xidhiidh fiicanna ula leeyahay waayo systemkan markii uu waxa weeyaan siinayay wuxuu sameeyey qaabka u dhaqmo ingiriisku wadanada qaarkood uu siinayay u doonayay soomaaliyana ay gadaafaysay ee ahaa maadaama talyaaniga iyo maaragtay ingiriisku uu wadanka maaragtay isoo sheegana ay guumaysteen oo laba qaybood midna sodarka ama waxaan idhaaho maaragtay sodarenka ama south iyo north Soomaaliya labadaba maaragtay midna ingiriis iyo mid talyaani bay ahaayeen guumaysigu marka guumaysiga ingiriiska waxaa la oran karaa Soomaaliya xididada loo jaray kadibna sababtay weeyaan dhulkan loo yiraahdo safe area la yiraahdo maaragtay isoo sheegana uu bixiyay Ogaadenia ee ilaa imika lagu dhagan yahay magaca lagaga dhagan yahay aasaar buu doonayaa aasaar waana waxa la soo waariday oo ingiriisku waariday marka waxa weeyaan inagu dad waxaan nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qoomiyad Soomaaliyeed oo aqoon iyo cilmi iyo intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey dad maaragtay isoo sheeg waxaan nahay guumaysigu kala qobo ayuu kala jijibiyey baan nahay waxaan markaa maqlayay hadallo iga soo gaadhay waliba rag waaweyn oo maaragtay isoo sheegayaan 60kii 70kii ku dhow ay ka hadlayeen oo ay lahaayeen Ogaadenia magacaasi meesha hadduu ka baxay waxa weeyaan waan gumoobaynaa oo waan goblamaynaa waxaan idin sheegayaa idinku waxaad isleedihiin dana idin gaara oo maaragtay deegaankiina magac kula oo sumcada oo aan qarin haysaan loo qarin baad hadhow toole aad ku doodaan baad helaysaan laakiin waxaan idin sheegayaa xagga kale ka eega meesha xuna ka eegina Soomaali baa iskale Soomaali dad walaalaa weeyaan cid la kala geyn karaa ma jiro waana halgankii la oran karay maaragtay isoo sheegana OLF ay gashay waxay ku gashay waqti badan bay soo dagaalamaysay halgankiina muxuu noqday ma mid idinka dhexdiina oo maaragtay Soomaali dhexdeeda lagu soo noqday halgankiina ma ahayn miya mid halkaas meel micnaha eegayo maaragtay pointi meel fog oo mool la gaadho leh waxa wanaagsan Soomaalidu waxay ku maamahada walaalo isjecel way xoolo badiyaan walaalo isnacibna way xoolo yareeyaan horta Soomaali ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintan keentay in burburku keeno laga dhex faa'iidaystaa waxa weeyaan waa waxyaalaha guumaysigu uu keenay la yidhaaho tribalismka in lagu dhex abuuro arrintana waxa weeyaan ka hor ingiriisku iyo faransiisku intuu yimid Soomaalidu way jireen boqortooyooyin iyo dagaalo maaragtay waxay ahaayeen reer guuraa bay ahaayeen oo in beere iyo xoolo iyo la kala dhaco la isku qabsadaa way jireen laakiin waa la xallin jiray laakiin may lahayn laakiin waxa la yidhaaho qabaa'ilka intaa leeg oo weyni ma soo dhex gelin ingiriiska ka hor ingiriisku wadanka markuu yimid waxyaalaha uu ku suntan yahay wadanada uu tagayna calaamadaha uu ah weeyaan wadankaasuu guumaystay aasaartu kaga taga weeyaan ififaaladii hore markan la qaato waxa weeyaan Soomaaliya markay Soomaalidu ahayd boqortooyooyin bay lahaayeen kala duwan boqortooyadii boqortooyadii la oran jiray Dread
markii dambena koonfurta markii loo wareegay la gaadhayna la oran jiray boqortooyadii Biyamaal. waxaa kaloo jiray boqortooyooyin fara badan, boqortooyooyinkii ka badnaa maaragtay boqorkii Majeerteenia. boqorro fara badan baa soo baxay, Adal Imperial oo iyaduna ahaa boqortooyooyinkii ugu horreeyay ugu faca weynaa. marka waxay ahaayeen dad boqortooyo ah oo boqortooyooyina, laakiin haddii ay xitaa yimaadaan oo xal baa la samayn jiray hadday xaalado colaadeed yimaadaan oo isku yimaadaan. colaadaasina ma ahayn dad maaragtay iisoo sheeg kala cod goosanaya oo cadaawo isku ah oo si xun maaragtay isku gumaada. hadday iskumaadaan waxa la isku qabsan jiray waxay ahaayeen dadku xoolay lahaayeen. geela inta badanna waxa dhibaatadu ka dhacdaa waxa weeyaan oo ka dhib badan marka la eego dhulbeereedka. waxa ugu dhibi oo la isku hayo inta dadka maaragtay qodaalka iyo dadka maaragtay iisoo sheeg la yidhaha reer guuraaga waxa weeye waa dadka xoolo dhaqatada ah. xoolo dhaqataduna weliba waxa weeyaan waa kuwa maaragtay livestock marka lasoo qaato kuwa maaragtay geela dhaqda ayaa inta badan safaro dhaadheer taga, meelo geelu maaragtay iisoo sheeg soofiya, meelo fog la tago. marka waxaa imaada haddii geel hore meel uu daaqayo qolo kala deganayd uu geelan kala imaado, waxay ahayd markaasi haddeen daaqsin una meesha ku lahayn in isku dhac yimaado geelaasi ama la kala dhaco oo la yidhaahdo ninkan geel badan buu leeyahay geeliisa waxaan ka qaadano. sababta loo yidhaahdo Soomaalidu weeyaan geel waa booli. marka waxa weeyaan arrimahaasi ayaa jirta. xoolaha ugu badan ee Soomaalidu dhaqanayeen inay wadanka ay soo galiyaan ama dhaqanka ay u leeyihiin hidaha waxa weeye waa geela. waxa labaad waxa ay soo socdaa waxa weeyaan waa ishin, ariga iyo lo'da. laakiin lo'da iyo arigu markaasi dadka inta badan dhaqda ee lo'da iyo ariga leh dad maaragtay maaha dhib badan oo dhib ka timaada, laakiin geela weeye dadkii lahaan jiray. waayo dee waqtiyada hore nimcooley buu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam, gaadiidna wuu ahaa, daabad buu ahaa. ninka 100 geela haysta nicmooleya haysta wuxuu ka khayr badan yahay waxa xadiisyada ku jirta calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaam ka tagay. marka geel wuxuu ahaa shayga ugu qaalisan ugu qadiimsan buu ahaa waqtiyadaasi. marka waxaan uga socdaa guumaysigu aahaar buu ka tagaa. aasaartiisii haddaad doonaysaan ina aad tiir u dhistaan idinkoo markaa sadbursi ku raadinaya, wallaahi waxaan aad baan ula yaabay. waxa weeye arrintaasi dadka degan gobolada maaragtay isoo sheegay galbeedka Ethiopia ama se maaragtay Soomaali galbeed loo oran jiray degan, dadka ugu caqliga badan leh ugu xikmad badan leh ayaanu aad iyo aad ugu haystay. runtii waxa weeye midda kale markaan halkaas soo taabtana halgam dheer baad ku jirteen, halgankiinii dheeraa ma wuxuu noqday in Soomaali dhexdeeda halgankii dib haddana ugula soo noqotaan. oo elef waxaan aad ula yaabanahay ururkaasoo ahaa urur ka dagaalama Soomaal kuna dagaalamaya horena ay ahayd dagaalkii hore loo qaaday idinka horreeyay ee laga sii dagaalamayna uu ahaa Soomaali oo dhanna u dhammaystirnayd, cid gaarana ayna wadin, jifo gaarana ayna wadin, qabiil gaarana ayna wadin, Soomaalina u wada dhammaystirtay dadka deegaanka degan ay wada yihiin ayaa u wada dhammaystirtay. Soomaali galbeed baa la oran jiray. ilaa imikay jirtaa jabhadihii waqtigaasi ka dagaalami jiray ilaa imikay jiraan ee la sameeyey 72 iyo wixii ka horreeyey Ethiopia la dagaalamayay. markii dagaalka Ethiopia iyo Soomaaliya 77kii la galay ka hor 74 kuwii la sameeyey baa joogo ah horyeel la yiraahdo caana oo la yaqaano ayaa ilaa imika Ethiopia ka jira. jabhadahaasa jiray oo kamid ah waa jabhadihii dawladda Soomaaliya sameysay ay ugu tala gashay inay ka dagaalamaan, waliba kuwa dhinaca waqooyiga ka soo dagaalamayay xuduudda dheer. waayo wuxuu la leeyahay waqooyigu aad buu ugu dhow yahay deegaanadaasi dadka degana weeyaan Ethiopia gudaheegana degaan. hadday dir dhaba tahay, hadday dhaaftay hawaash tahay, mataar hadday tahay waxa weyn meelaha ugu badan markii 77kii la dagaalka lagu waday maartay dawladdii migistana lagu waday lagu gaarsiiyay ugu awoodda badneed cubuqda weyn ka soo gaadhay waa dhinaca dhulka Soomaalida.
hadday goday noqoto hadday dhinacan kala noqoto waxa weeyaan dhinacyo badan baa laga soo dagaalamaya dhinaca mooyaale iyo gandir iyo maxaa la oranaya isoo sheeg suuf dowlo iyo waxa weeye dhinacana waa laga soo dagaalamayay waayahay deegaanka ballaadhan soo Itoobiya dhinaca ku dhararan Soomaali badan baa degan imikun ma deganaynay waxay deganaayeen 1500 oo sano ka hor bay deganaayeen waxa weeye marka dadka meesha degan ma Soomaali dhexdeeda anu waxaan u arkaa magacaasi iyo systemka iyo nidaamka oo ay wixii aad u dagaalanteen ma waxaad noqoteen kuwa qoriga mar labaad u qaatay dadkiisii wixii shalay aad ka dagaalamayseen dagaalkaad qaadaysay ma waxba kama jiraan buu noqday anu taa rag waaweyn oo ku hadlayaan arkay waan la yaabanahay war halgan hadduu imaado oo halgan laga hadlayo halganka in laga dhabeeyo wanaagsan halganku laakiin halgan sokeeyo hadduu noqdo mid aasaar loo joogsada maaha wuu soconayo tusbax furtay buu noqdaa wuu socdaa ma joogsado wax meel istaaga ma noqdo marka waxa weeyaan anu ma arkataa halgan uma arkayo laakiin OLF way soo dagaalantay waxyaalo ay ka dagaalamayeen way dhamaadeen system iyo nidaam iyo system bay samaysteen waxa weeyaan iyaga dhexdooda iska soo doortay kii aad maartay ku qanacsaneedeen aad soo doorateen maantana ma doonayno waxa weeyaan si kale intaad u aragtaan oo xusbigii dib ugu aasaastaan oo dabadeedna sameysaan maartay soo sheeg dagaalo badan iyo dib kale aad abuurtaan madad xumaan u joogun baad ahaanaysaan oo dib u joogaad ahaanaysaan weligiinba waxa weeyaan midda kalena aanu ereyga markaan ka xanaaqsanahay ama aan diidanahay waxa weeyaan war oo ogaadeeniya ingiriiska bixiyay ingiriiskana umuu bixinin dana idinku aad leedihiin umuu bixine dana uu isagu leeyahay uu baxsaday iga qor arrinkaas wuxuu u bixiyay aasaar inuu aasaar kaga tago waxa kale uu bixiyay magacyada uu bixiyay kamid oo aasaar kamid ah Somaliland dhulkii Soomaaliyeed buu yiri waa arinta imika lagu dhagan yahay aasaar ahaan buu uga tagay ma aha waxa weeyaan waa masaabiir waa jelfisna loo dhigay tuus ama waxa la yiraahdaa maartay nabr uu meel ku qabsaday ama xanjo meel uu ku dhajistay weeyaan uu doonayo inayna waxaasi ka bar uu meel ku dhajiyo baaba'aynin buu ka dhigay inuu aasaar ku yeesho doonaya macnaha soo xoolaha lama sumto calaamad looma samaysto calaamadii baa tahay markaa adiguna calaamadaasi waxa weeyaan gumaystigu wixii uu keenay in aasaartiisii aad tirtirto oo wixiisii tirtirto adoo wax wanaagsan la timaada yahayde in aad ku faanto tiraada ingiriiska ay guumaysan jiro ogaadeen iyo ingiriiska ay bixiyay kana tagi maayo waa kaafiye kala dheeri maanaga wala masaadan ba laga yeesaya ninkii yiri ma waxa weey markaas sidee wax u jiraan marka dadka say wax ugu yar qaldan yihiin rag intaas iskugu yimid oo boqolaal oo shir weyn inta la qabtay dabadeedna hadallada lagu hadlayo waa wax damiirkuuna qaadan kareynin waa wax qofku qaadanayn waxa weeyaan carruurteena cudfi iyo xumaan new generation ka soo socday lagu beerin inaga 30 sanadood baynu istagaalamayno oo isleeynayno oo isdilaynay oo Soomaali isdilaysay inay ka waantoodana ay tahay hadday tahay Soomaalida dhinaca daga maartay soo sheeg Soomaali galbeed hadday tahay Soomaali NFD waxa weeye maanta waxaynu taagannahay hadday tahay Soomaalida gudaha sidii aanu waxa weeyaan maartay soo sheeg uga gilgilan lahayn qofku taariikhdiisa uu soo maray iyo dibtii uu soo maray uu ku tusaale qaataa waynu ognahay wadannada Soodreenka dagaalo badan bay soo galeen laakiin way ka tusaale qaateen dagaalada sokeeyana meesha way ka saareen intuu keenayna way ka saareen inuunan in reebin in xasuusuna reebin wixii xasuusta reebay intii reebay oo dhan waa laga wada saaray dabadeedna United bay noqdeen oo United waa kuwa soo saaray Europeanka United markay noqdeen way laakiin maxay isku leen jireen boqortooyo isku leen jireen marka waxa weeyaan inaga
dagaalka inoo cusbaa waxa la soo waarido meelo kale laga keenayna wuu ahaa masaabiixi meelo kale laga keeno lagu sii dhex daayo dadkan waxay garan waayeen bay qaateen taasaana jalfisyada ay qaateen iyo fajidaa loo dhigay baa ku wada qaraxday marka waxa weeyaan iisoo sheeg maanta waxyaalihii la doonayay in laga reebo in dadka laga tirtiro in wanaag dadka maartay nabad baa caana macaane la isku soo keeno in aad mar labaad soo abuurtaan waa laga wanaagsan yahay aad baana looga fiican yahay arrinkaasi waxa weeyaan wadaayow arrinkaasi ka noqda ka fiirsada waxa weeyaan iisoo sheegeen wayna wanaagsan tahay in magacaasi tafiirta ingiriisku lahaa Ethiopia iyo ingiriiska ayaa arrintaa ku heshiiyey waxa la doonayay waatii dhibaatooyin badan naga wada maartay iyadoo magacyo badan ay lahayd oo badan oo ingiriiska meelahaas kaga tagay laakiin kan markii dambe ugu talagalay cusbiga inuu isku geeyo uu sameeyay oo doonayo in dadka halka jooga uu kaga tago shelfis ku dhex qarxda oo ka dhamaanin waana sababta keentay imika shelfiskaasina waxa weeyaan Soomaali baa iskale adigu haddaad doonto masiirka ugu badan qaado laakiin meesha waxa yaala magaca ka tagi mayno annagu waxaanu diidanahay magacan aasaarta ah ee aasaartay lagu maartay boogta kuga ee naburka ee gidaarka xanjada lagu dhajiyo barada nagu ah tuusta nagu ah ingiriisku inuu naga dhiga taasan diidanahay Ethiopiana cid wax ka qaadan karta Soomaali haddaad aaminsan tahay in laga qaadan karana lagama qaadan karo haddaynu ku dagaalamayno oo xitaa baxdo oo aad wax diido magacaaga samaysan kartaa Soomaali Ethiopian movement baad samaysan kartaa wax kala oo laakiin ogaadeniya anagu ma diidanin qabiil kama diidanin ogaadeen dad baa la yiraahdaa magac iyo sharaf la cisi leh Soomaali ku dhaxle waana aaminsanahay wayna jiraan wayna jiri doonaan laakiin waxa meesha yaala ha qaadanin waxa lagu soo laalaabay ingiriisku naga tagay ha qaadanin annaguna qaadan mayno ma doonayno at least dhulka Soomaaliyeed waa wax macquula laakiin waxa marka kan la leeyahay halkan waxa lagaga tagay oo Somaliland lagaga tagay toos waa iyada naftarkeega loo doonaya in maartay dadka lagu kala kaxeeyo Soomaali koonfur laakiin taas waa tii guulan ka gaarneen kabti uu watay laaga ku qaadnay ingiriiska waa tii sharaf xumadii uu ka gaaray halka dabadeedna markuu ogaaday yiri nimankan waxay qaateen arinta Talyaaniga ba igaga badiyay meeshana dagaal siyaasadeed baa socday iyaguna gumaysi bay ahaayeen xaraan bay ku dagaalamayeen markii hore ma xalaalay ku dagaalamayeen waxa dhul dad bay gumaysanayeen Talyaaniguna wuxuu doonayay inuu gumaysto koonfurta iyaguna waxa weeyaan Faransiiskiga ninkan oo isbahaystana waxbay gumaysanayeen group baa loo kala socday reer Yurub baa marka waxaan ahayn waslad hilibo bislaato bisil oo la kala qaybsanayo Yurubiyaan kala qaybsanayaan baan ahayn fahma sida u fahma maanu hayn oo midiyaha loo soo qaatay marka waxa la go'aamiyay Ethiopiana heshiiskii la Ingiriis iyo Ethiopiana leesba tusi jirin taariikhda dib marka loo eego oo raacdo dadka cilmiga iyo aqoonta leh ee historyga akhriyay ee soo akhriyay Ethiopiana wax ku bartay ee garanaya way garan karaan laakiin ninkii qabaa'il iyo maartay cufti qabaa'il ku jiro ma garan karo war waxa weeyaan meeshaasi waxa ka jiray Ethiopia waxa uu boqor mililig Talyaaniga markuu maartay kula dagaalamayay Haile Selassie markuu kula dagaalamayay Talyaaniga maartay Eritrea waxay ku heshiiyeen Talyaaniga markuu soo galay in ingiriiska iyo Faransiiska suuna ula dagaalamay maartay uga qabsan wadankiisu maadaama xaggan Ethiopia dhulkii iyaguna sheeganayeen markaan Haile Selassie wuxuu sheeganayaba in Ethiopia bad xagga wax ka jiraaba ayna jirinba Soomaalida degan ee la keenay ay yihiin dad foreigners ah oo meel kale ka yimid doomiyay ku yimaadeen buu ayuu maartay ku doodayay in dadkaasi laakiin deegaankan uu yahay deegaan Ethiopia lahayd Ethiopiaanku deganaayeen markay doonaan xoolaha maartay deganaya ugaarsaday ahaayeen ugaarsadooda xagaa tagi jirtay deegaankana deegaan Ethiopiana cid kaga soo horeysay Ethiopia qoomiyadaha Ethiopia ka soo horeysayna inay jirin taas ku doodayay bal u fiirsada midda kalena waxaynu ognahay oo dib loo raacay oo
dagaaladii ka horreeyey Hayle Salaase mililig xilligiisii ahaa Cumar Guray Axmed Guray uu la galay Axmed Ghazali adal imperial dowladdii la oran jiray ama se maaragtay boqortooyadii la oran jiray ay la gashay waa tii kaniisado badan oo ilaa 50 kaniisadood ay gubtay waxa markaa xidhiidhila lahaa oo diimaha meeshii ka jira arrimo waxa jira markaa waxa la yiraahdaa dagaaladii diimaha oo xilligaasi wadano badan ka jiray oo markaasi soo dhamaanayay ayaa sii jiray aasaartiisii marka waxa jiray xidhiidhyo xagga relationka ah oo diimahu lahaayeen kaniisadaha waqtigaasi adduunka maamulayay orthodoxku waxay ku lahaayeen kaniisado Catholic iyo maartay Romanianka ah hoos oo Romaniankuna waxay ku lahaayeen kaniisaday ku lahaayeen Talyaanigu wuxuu ka qaaday taariikh ahaan markaan dib u raacno taaladii la oran jiray Aksum meesha la yiraahdo taaladii u taalay buu qaaday cabsi marka la qabay in la gubo taalada markaas ka qaaday 1994 buu dib ugu soo celiyay maxaa markaa yimid waxa markaa la aaminsanaa waa dad markaa kaniisado badan baa ku ooli jiray system diimeed oo fara badan baa ka jiray awooduna markaas iyaga u badnaa wax arimaha noocaasa ayaa waxay sababeen in taageero weyn la siiyo Ethiopia Talyaaniga markaa aan u soo noqdo markii ay heshiiska galeen heshiiska waxay ku wada galeen maadaama uu Faransiiska iyo Talyaaniguba ay dhulka soo galeen xagii waqooyiga dhul aad ugu dhow Ethiopia ay tahay in markaas la sameeyo waxa la yiraahdo discussion bay sameeyay wuxuu yiri anigu dagaal baan kula galay ciidan iyo hubna waan ku siinayaa haynu heshiis noqono heshiiskii markuu la galay dagaalkii waa ku kamid ahaayeen ciidamada Talyaaniga kamid ahaa markii Ethiopia iyo Talyaaniga Ingiriiska Talyaaniga ku dagaalameen Ethiopia cidaan aaminsanayn isagoo migista xeela marya waxaan ka wada Hayle Salaase dabada kaga jiro marka ciidamada Ethiopiankuna ay ku jiraan kuwa kalena hub fara badanna wuu siiyay wuxuu dhitaa waan qaybta xagga sanadaha ciidanka iyo wixii aad u baahan tahay dhanba ka taakuleynaya dagaalkana gal Ingiriiskuna markuu arkay xaaladii markii dambe Talyaanigu xaggan kale koonfurta markii uu gumaysanayay la iskugu yimid Soomaaliyana waxay noqotay in Talyaanigu kaga baxo magaranaysa Ethiopia kanna uu soo dhaweystay Ingiriisku markaa uu yiraaho dhulkii markan dambe loo bixiyay reserve area la oranayay in Ogaadeniya markaas uu yiraahdo dhulkan deegaankan Ogaadeniya deegaan maartay Ogaadeniya la yiraahdo waa in adaanku ugu wareejiyay shirkaasna waa shirkii ku dhacay ay ku qabsadeen Ingiriiska lagu qabtay laba ninba markaas si fiican baa lagu soo dhameeyay markii in la kala googooyo la doonayay fahma waxa weyn nimanka la yiraahdo ay soo sheegay ninka la oran Jomo Kenyatta iyo waxa loo yeeray soo sheegan Hayle Salaase boqorka markaa haystay ahaa labadoodiiba waxa weyn labadoodu kana waxa markaa lagu heshiiyay heshiiska lagu galay in NFD-na maartay la siiyo maartay soo sheegan Kenya ay qaadato oo Jomo Kenyatta ka qayb galay kana uu maartay Ethiopia marka Ethiopia waxa lagu bixiyay Ogaadeniya magacaas isagoo markaa ay ku heshiiyeen inay systemka maadaama Ethiopia ay qabsadaan halka maamulaan dagaalkii kula jireen ka baxay isoo sheegay midda kalena ay qorayeen historyguna qorayso waayo dagaaladii waxa dhacay European-ka dhexdeeda dib u soo noqdeen iyaga naftirkoodii dagaalka markuu dhacay isoo sheegay Jarmalka iyo Faransiisku way noqdeen 40 iyo dhowrkii marka system noocaana waa la sheegaa oo maartay historygu qoraya laakiin waxaan idin sheegayaa xaqiiq waxa laga doonayay markaan u soo noqdo degalkaasi waa degalkaas haddaad aaminsan tihiin magaca meesha inuu ka baxa weeye Soomaali baa iskale deegaanka dadka degan ee wada degana dad badan baad wada degtaan walow idinku ha u badnaataanba deegaanka dad badan baa degan cid kastoo Soomaaliya nooc ayaa degan innaguna Ethiopia waxbaan ku soo bartay waana soo deganaa deegaanna waan ku ahay waana garanayaa laakiin runtii marka laga hadlo waxa weeyaan deegaanadaasi dadkeedii la deganay walaalihiina wixii maartay wax wada qaybsi iyo maartay saami qaybsi ama transparency maamul iyo system aad u dhisateen iyo qof aad maamulka u dhiibteen baa jiray shalayna waxa weeyaan wuxuu dagaalka ku jira 19 waxaan xasuustaa 91 ilaa up to now Ogaadeniya dagaal bay ku jiraan bas ma garan karo 30 sano ay leeyihiinba 30 sano marka inta marka laga reebo
1977 dagaalkii markii la galay wixii ka dambeeyey maxamed saad bare dagaaladii maaragtay soo sheeg xilligii xukuumadda maxamed saad bare ay jirtay wixii ka dambeeyey dee waxa weeye waxa jiray system baa jiray maaragtay soo sheekada ka duwanaa oo waa kuwii RBD qolada maaragtay yahadigtu waddanka markay qabsadeen ee waddanka haysan mala sanaawi uu qabsaday sistemo fara badan baa soo jiray waxa weeye ilaa waqtiga laga soo bilaabo ilaa imika jabhaddii igu sameeyay oo elaf aheedaad samayseen dagaalba waa laga bixi lahaye marka anigu garan maayo dee waa dagaal marka anu waxaan oran karaa sokeeyo dhexdiine ma aha anigu ma arkay arrinkaa dhex geli maayo waxaan leeyahay markaasi maamul iyo system baad samaysateen maamulka iyo systemkaad samaysateen shalay tooleydinkaa doortay mustafe dib ugu soo noqda haddii xisbiga uu jirayo xisbiga asaasanay waa sax xisbiga inuu jiro uu sii jiro oo ahaado waa munaasib oo waxaad ka tashato buu fiican yahay inuu sii jiro laakiin magaca dee dadka degan iyo anagu arrinkaasi soo dhaweyn maayo waan ka mid ahay aqoon-yahaniinta gobolka maaragtay ka soo jeeda wax ku bartayna waanahay ma soo dhaweynayno waxaan ula soo dhaweynaynin ma diidanin micnaha dadka soo ma idi diidanin ilaahay baa idiga dhigay meesha idi dejiyey sharaf iyo cisna waad ku leediin Soomaali dhexdiisa laakiin waxaanu diidanahay magacan aasaarta Ingiriisku dhisay inaad ku sii deganaataan كائنات كوسي دغناتان wax idiidana maaha haddaad aaminsantihiin saad bursi inuu yahay baan anugu aaminsan haddii saad bursi Soomaali dhexdiisa caadi weeyaan walaalka waxa la yidhi ushaadan inaad ka qaadan kartaa loo dhibtay walaalka waxaad u kaa qaatay meel fog kaama jiro geel carruur qaaday meel fog ma jiray Soomaalidu tiraada meel fog kaama jiro wuxuu Soomaali kaa qaaday meel kaama jiro xitaa laakiin waxa meel kaa jira naburkan iyo asaantan iyo boogtan meeshan la dhigay meeshan laga saaro ogaadheeniya hadda anaga waxa weeyaan ma kala jeclay dameer iyo labadiisa daanood weyn Ingiriiska iyo Ethiopia oo xilligaasi maaragtay xilli salaasa haystay labaduba waxay ku heshiiyeen dhulkan isagoo magac u samaystay oo sumad u samaystay Ethiopia ku dhiibay wuxuuna markaa ula jeedadiisu tahay siyaasadda qabow ama siyaasadda ayuu rabaa isagoo markaa wada maartay guumeysiga dahsoon la yiraahdo oo hadhow toolo macnaha hadii wadanada kale ay yimaadaan oo hadal yimaado la yiraahdo sharciya jira adduunka wadankaas nimo wadanku guumeystay wadan kale uma weydaaran karo Faransiisku wadanadu guumeystay Ingiriisku ma weydaaran karo colonized system kaas ayaa jira aasaartaas marka taas meesha ka saarayna waxaan kaloo ka saaraynaa oo iyada naftarkayga idala mid ah hadalka ugu soo noqonaya halkaas ka qaadaya dhinaca Somaliland iyaduna waxa jirta aasaar kale oo ah Somaliland waa dhulkii Soomaaliyeed laakiin dad la aaminsan iyo soo sheegay waxa la yiraahdo anaga Ingiriiska dhibaatadu noo gaarsiiyay ka sii jecel oo ka sii aaminsan waxa la yiraahdo 18 May waxa wanaagsan qof taariikhdiisu ma aaso dadba halganku marka wuxuu u baahan yahay waqti dheer buu u baahan yahay halgan weeye taasi naftarkeedu qaabka loo tirtiri lahaa arintaasi dadkan lagaga dhaadhicin lahaa ayaa muhiim ah 30 sanadood waxa loogu dhigay iskuulada carruurta loogu dhigaa oo buuga manhajkaasi xataa in cigaal uu diido yiri war waxaan isnika ugu roon ee ugu fiicnaa ugu aqliga badnaa in cigaal buu ahaa in cigaal wuxuu yiri manhajkan naga socon maayo noo yardaaya manhajkanna waxa dabada ka waday niman iyagu SNM ka mid ahaa ka tirsanaa haddana doonaya si gaar oo leh manhajkan dagaalaan soo galnay waxaan u soo dagaalanay dhibaatada u soo dagaalanay garan mayno haddii aan manhajka iyo taalooyin loo dhisin dadkaasi inacigaalna wuxuu ka soo horjeestay oo arrinkaa diiday wuxuu yiri inagu Somali National Movement bay ahayd waxaan ula dagaalameynay dawlad baynu ula dagaalameynay system kana la dagaalameynay dadkeena la degan sidee looga iibinayaa waayay ina siyaasadan inaad ay ka iibsantaa wanaagsan ay looga iibinayaa dhinacana deegaankan waxa degan maartay Sool iyo Sanaag inanka degan iyo inanka gobolada awdal degan iyo dadka Sool iyo Sanaag degan sideen uga iibinaa waa arrin aad cajiib marka waxa markii la keenay baa manhajka in lagu daro wudiida in cigaal waqtigaas ana joogay idiga sheekayn mayso manhajka waa diiday waxaana soo aasaasay oo soo qoray UNDP da
ama se ayaa arintaa la hoos galeen fangelin fara badan ku bixisay markii dambana waxa ay la hoos galeen maartay hay'adda fam ayay la hoos galeen marka iyo maartay hay'addii kale iyaduna la oran jiray sasco hay-adahaasoo dhan bay la wada hoos galeen saaska markaasi waxay ku xidhay inay UNDP-du arrintaasi horta ogolaato UNDP-da ansixisay kadibna waa la soo daabacay buugaagtii baa la soo daabacay la soo diyaariyey buugaagtii qaar in badan oo boorama lagu gubay baa jiro waa la iskala diiday marka kacdood aad u weyn ba ka dhacay waa la diiday buugaagta in lagu akhriyo kadibna waxaa urur baa jiray markaa la oran jiray sooyaal la yidhaaho oo hargeysa ka dhisan oo ay lahaayeen curyaamiintii SNM ama dadkii maaragtay kusoo naafoobay SNM ma la oranayo waxa la yidhaaho handicapka iyo ahaa oo markaa loo dhisay oo markaa waxa la yidhaahaa ururka SNM ay u bixiyeen oo iskugu yimaadaan oo halka xafiis u ahaa kuwaasaa markaa waxay sameeyeen abaabulka lahaa oo soo diyaariyeen buugaagta la sameeyeen laguna akhriyo maaragtay la sameeyo laakiinse wax soconaya way noqon weyday laakiin waxa markaa la hirgelinayay oo hirgelinteeda la rabay in la hirgeliyo xilligay maartay uu gudoomiyihii SNM uu ku guuleystay xisbiga kulmiye gudoomiyana uu ahaa anigu qurmis baan u aqaanaa hadalkaa dayn maayo waa run waana xaqiiqda kulmis waxa la yidhaha wixii wax kulmiya laakiinse kulmiye maahayna qurmiyu ahaa dad wax xumaan iyo maartay kala fogaansho keenay mooyaane wanaag uu u keenay deegaankaasi ma jiraan xataa ciddii ku heshiisay baa ku kala tagtay oo ku kala fogay marka qurmiye ama kulmiye labaduba waxay arrinkaasi ay soo keeneen inay meeshada keeneen waxa la yidhaaho inay hirgeliyaan amaamiirtaasi oo inta badanna garab fiican ay ka helayaan markii mudaharaadyada xilligii daahiryaana la sameynaya ay dee dabada ka wadeen maaragtay soo sheegan maaragtay xusbigaasi ururkaasi markaasi maaragtay SNM naafada SNM maaragtay ku bahoobeen oo naafadana waxna lagu siin jiray dhaqaale fara badan UNDP ay ku siin jirtay meelo badan oo barnaamijyo fara badan la hargeysa lagu sameeyo ma garanaysaa ay ku shaqeeyaan oo wixii shaqeyn kara iyo wixii maaragtay lagu caawinayna lagu sameeyay kuwaasaa markaa dabada ka waday inta badan madbacad baa markaa jirtay ay sameeyeen oo hoos ay maaragtay UNDP samaysay oo ay iyaguna lahaayeen kana soo bixi jiray markii dambe madbacaddii qof shakhsiyaaba sheegtay oo iska lahaa markii dambe madbacad caadiya ba noqotay oo meesha waa laga saaray waxyaalo badan jiraad yar bay soo saaray waxyaalo badan bay sameyn jireen xataa waxay lahaayeen artiska meelahaas waxyaalo qof artiska la barayo qofkii baranaya aduu rehabilitating waxa la yiraahdo rehabilitation ayaa loo sameeyay dadkaasi mashruucana UNDP da hirgelinaysay marka waxyaalahaas oo dhan marka qoladaasi xusbigaasi ilaa imikana waa jiraan marka kulmiye wuxuu hirgeliyay markuu qabsaday Siiraya markuu qabsaday ayaa la doonayay in hirgeliyo Cabdillaahi buu ahaa ninkii loo soo maray ee ku hadlayay hadalkaas in goboladooda ka soo jeeda ayaa la doonayay arrinka la hirgeliyo way jiraan in way socon weyday laakiin way jiraan in lagu qasbay iskuulada dawladda ay maartay maamusho ama se maamulka haraaga SNM ay maamulaan ayaa qasab waxa lagaga dhigay meelaha qaarkood iskuulada qaarkood ee awoodda leh waliba in laga dhigo oo lagu dhigo buugaas buuga in lagu dhigo waa lagu qasbay buugaasina waxa weeyaan waa 1980 ayuu ka soo bilaabmay 88 ayuu ka soo bilaabmay taariikhdii dhacday weeyaan waxa marka inay arrimahaasi jiraan oo ay waxaasi jiraan tafiirtana la doonayo waxa marxaati kuga oo aan marxaati ka dhiganay marxaati beenaalo wuxuu u fogeeyaa baa marxaatigiisu fogeeyay waxa marxaati ah Muuse naftarkiisa Muuse wuxuu rabay aasaartoo dhan way diideen arrintaa waa arrin laga wada dhameystiray xataa in cigaal naftarkiisa uu la qabay taas horta buugta uu diiday wuxuu sabab kale uma diidanayne maamulkii iyo systemkiisa in laga hor imaado kacdood imaado ayuu diidanaa uu lahaa laakiin
mabda ahaan iyaga ugama soo jeedin kalama soo jeedin uu la qabay sababta in laga saaro aasaarta maadaama Somaliland la leeyahay Somaliland ay jirto oo Somaliland la doonayo oo Somaliland lagu doodayo maartay abaabul uu jiro marka la doonayo in adduunka lagaga iibiyo wax oo la yiraahdo Somaliland sidaas weeyaan dhibaatadaasna la gaarsiiyay Soomaaliya dhigay walaalaha in dhibaatadaasan kala kulanay aasaarta iyaduna waa ka dadkii la diray macnaa wax la doonayo in laga dhigo maartay soo sheegana history ahaan carruurtana loogu dhigo iskuuladaan ku dhignaa ma garatay taariikh ahaana loo dhigo lagu qoro maartay soo sheegana wadooyinka looga dhigo xataa marka waxa timid in wadooyinka mujaahidiinta asana modern la yiraahdo wadooyinka lagu qoro balaag Axmed Dhagax xagu ka yimid xaafadda Axmed Gurey baa la oranayay aasaartii waxa meesha laga saaray aasaartii ka weyneed 60kii ka sii horeysay 1830kii ahayd baa meesha laga tagay marka waxa marka la leeyahay meesha loo baahan yahay arinkaasi anu waxaan u arkaa labada dhinacba arinta Somaliland ee SNM ay wadeen Somali National Movement ay wadeen maantana ay doonayaan in ay aasaartii Soomaaliyeed iyo taariikhdii weyneed hore inta laga saaro taariikh shalay toolo xalay dhalada ah in la keeno oga maartay dhinaca Ethiopia inay maartay xisbiga oo la ku doodayaan والله واد أرنا وفوال حمويان لبدينه بهالكاس كسيمنتين وح مارتي صومالي ده نوع عنتنتا عندنا تدك عقل يجي عقون تلنا عنتميا ما أها لبضع بهالكاس كجدافين هرت هالكاس وين هلجن كمركا لدونيو هلجن كان مركا وسعونيا هلجن كو حوي وهلجن صومالية دوجود أوكي هلجن كاس محبوب بهاي نبضين الصومالية يدبوا سعلنتي صومالية سيدي له لها dawlad qurux badan oo sharaf loo Soomaaliyeed iyo Soomaali hankii ay lahayd iyo wada jirka ay lahayd in lagu soo celin lahaa hadii hankii wada jirkii Soomaaliya la doonayo dad badan oo wax aabuday oo rasuulku Kaleey salaatu wasalaam way jireen dad badan oo markii uu qabsaday dad badan oo iyaguna doonayay inay daaqoodkooga iyo waxoogii si hoosaaneed u aabudo doonayay waa ka wada burburiyay daaqoodka laga joojiyay wajaa xaqa wa saxqa baadila marka taas aad timid maanta Soomaali waxa weeyaan halkii hankii iyo sharaftii ay lahayd baa loo wadaaye hogaankii systemkay ku socotay wanaagay ku socotay Soomaali uu ku socod haday tahay NFT haday tahay dhinaca maartay Soomaali galbeed haday tahay maartay Soomaali gudaheega haday tahay dhinaca Somaliland waxa la doonayaa Soomaalidii la doonayay in la isku soo celiyo hore inay dib isku soo noqdo wanaagii la wada rabaay cid doonaysa inay burdaba furka ku ah waxa weeye wada waxa aan ka hadlayo marka halganku wuxuu u baahan yahay wada dheer waxaan leeyahay markaasi hore u soco weeyaan maartay farmaajo iyo nimanka ayaa Xasan Qayraba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa u soo bixiyay nimankan Ilaahay baa soo diray waana wax Ilaahay iska wato qadar Ilaahayna marka hore way ku timid maantana ummadda Soomaaliyeed kala fogaanshihii ay kala fogaayeen in la sii kala fogeeyo diyaar u manin haday yihiin kuwa Itoobiya degan maartay Soomaali galbeed ay galbeedka Itoobiya degan haday tahay kuwa degan maartay soo sheegan NFD haday tahay kuwa degan dhinaca waqooyiga kuwa koonfurta jooga in la kala fogeeyo diyaar looma aha Soomaaliyana ogaada anigu ma damqanayo dhaguhu ma daloolaane waki Suldaan Tibi Cadde yiri maartay wuxuu yiri dab meeshaad ka baqtiiso meel kale u dogob ka qiiqaaye waa duni qalbiga doon anigu baa damqanaya dhaguhu ma dalo waa duni qalbiga doon laga saaray dugsi ma laha qabyaaladii waxay dumisay mooyaane haday faa'iidii ay leedahay oo ay wax inoo keenayso 30 sanadood baynu soo wadnay 10 la iska dhiga meel 10 30 sano la soo waday jaamacadda hadeen graduate noqonayno bari hore noqon lahayn wax soconaya maaha waa waxna loo soo waariday 10 kale dad meel kale laga keenay buu ahaa Soomaalina ku kala fogeeyay maantana in laga suuliyo ay tahay waxna inoo tarimaayo aakhiriya adduunkana wuxuu inoo qabanaya laba midna toona ma laha waa waxa maartay soo sheegeen burburka keenay waa waxa maanta maartay Soomaali meel kastay joogay ku dhibaataysan iyo jeelal haday ku jiraan iyo haday tahriibeen iyo haday badba ku dhamaadeenba arimaha keenay sababay bay ka mid tahay qofkuna daawo haduu doonayo xanuunka ku dhaca marka xanuunka la ogaado ayaa daawada maanta xanuunkii baynu ogaanay daawadii
ayay nagu socotay daawada sideeda ha loo qaataan oran lahaa anigu daawada hadii la sagsaaga laakiin xanuunkaasi bogsoon maayo matal 6 bilood waa inaad daawo qaadato oo kale marka xanuunka TB-da la yiraahdo haddii aad sagsaagto xanuunkii wuu sii taagnaanayaa mid kastaba xanuunku ka hortag buu leeyahay ka daba tag ma laha waxa weeye marka wixii inagu dhacay waa inagu dhacay ka hortag maynu helin laakiin ka daaweyntii baan wadnaayo treatmentigii baa inagu socda daawada intaynu qaadanayna inuu wadano waxyaalaha maartay daawada sagsaagaya dadka daawada inay sagsaaga doonayay dooseedkii daawada lagu talagalay waqtigii lagu talagalay doonayay inuu ka dhax saaro hal maalin ama laba cish ka dhax saaro joojiya tafaraaruquna ka daaya dadka anuu taasaan kula talin lahaa oo oran lahaa kow oo ay ka mid tahay magaalada markaasi arrimahaasi waxay tahay waa arrimo aad u xun afaas in loo dhigo dadka carruurta loogu dhigo iskuulada oo la yiraahdo iskuulada loogu dhigaya Cabdilaahi baa ka mid ahaa nimankii markaasi la doonayay laakiin wasiirkii weeye waa cabinet waxa weeye waa qaybtii fulinta xukuumad waxay ka kooban tahay qayb sharci dejina iyo qaybta fulinta la yiraahdo fulintii waa government waa fulintii ama amirtay fulinayaan madaxweynaha markuu soo baxo hor dhigo baarlamaanka oo dhan baarlamaanku uu maartay soo sheegay golaha sharci dejintu ay soo ansixiyaan hadday codayn loo baahdana markaasi laba mid waa la sameeyaa haddii codayn guud arrinka sharciga la isku qabto oo la yiraahdo sharcigan ha loo codeeyo baarlamaanku haddii arrinkaasi uu dhaafo oo xukuumadda iyo baarlamaanku isku qabtaan waa in waxa la sameyn jiray sida la yaqaano waxa la hordhigaa shacabka bulshada la hordhigayaa waxa la leeyahay loo codeeyo si macnaa loo kala saaro cabinet ministerka iyo maartay xukuumadda governmentiga iyo maartay soo golaha sharci dejinta iyo golaha fulinta loo kala saaro marka ay soo codeeyaan waa dadka wanaagsan ee dawladnimada iyo nidaamka systemka wanaagsan doonayay yaqaano weeyaan markay soo codeeyaan ba waxa la qaataa laakiin arin laab la kaca oo shakhsi dad gaara ay doonayaan cid gaarana ay doonayaan jufo gaara ay doonayso oo jufada gaara ay wax ku doonayaan inay hadhowtona saad bursi u noqoto waxa wax soconaya ma dadka umada Soomaaliyeed ee deegaanka deganna uma aha annaga kuwa xaqana uma aha labadaba marka labada aan maanta ka hadlaya waa halganka cidda daba furka ku wadaana waxa weeye waa OLF iyo Hadaagiya Sanam halganka la wado ee la doonayo umada Soomaaliyeed treatmentiga lagu siinayo la iskugu soo celinayo dawlad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo qurux badan oo wada leenahay dibadna aan ku soo hirano sidii aanu hayinkii aanu lahaan jirnay hankii aan lahaan jirnay iyo sharaftii uu lahaa qofka Soomaaliga in la soo celiyo hadii la doonayo waa in daba furka la joojiyaa markaas daba furku halkaas uu ka yimid waa yahay taas halkaas aan kaga noqonayaa waa halgankaasi waxa weeyaan halgana badan baan ku jiraa maanta inaan ka hadlo halganka Soomaaliya ee guud halganka labaad baan rabaa inaan ku soo noqdo oo ah ka jira gobolada waqooyi waliba galbeedka gobolada waqooyi ah halganka gobolada waqooyi ee jira ee uu Suldaan Wabar wado waxa sababay baan rabaa inaan halkan ka cadeeyo horena waan u soo sheegay waxay ahayd arrin laab la kaca arrin ay ummadda deegaanka degani inay dhigooga kale ee walaalahooda ee ay jaarka yihiin oo ood wadaag yihiin inay wax la wadaagaan markii la doonayay lagama raadin meeshii fiicnaayo wax laga raadiyay meeshii xumeed bay laga raadiyo waxa jirtay dad dana gaara leh oo intay carareen ka carareen magaalada Boorama waxay ku dhan yihiin dadka deegaanka degan ee ballaaranna arrin ay ku wada dhan yihiin oo laga wada tashado kadibna loo diro guddi la saaray ma jirin sartu marka alifka alfaana ku qabta arbaqdooda halkaasay ka qoranto halkaasay wax ka yimaadeen iyaguna waxa weeyaan wax may sixine oo dhinacanna waxaan qaladka u saarayaan leeyahay dhaliishooda ay leeyihiin oo waxaan dhaliishan u saaraya waxay tahay 750 qof baa gobolada lagu dilay xaalado dagaal baa jiray haddii in wax la wanaajiyo la doonayo dameeshii wax laga doonayo sidii wax loo doonayo may doonina si qaldan bay wax u raadiyeen taasaa sababtay markaa in lagu hashiin waayo in wanaagga systemkuna awrku dhinac ka raran yahay taasaa sababtay mar walba awrkaasi dhinac buu ka rarnaa wax saxsan ma ahayn waxaan leenahay ari shuguux kama ilbaxo war Soomaali baa iskale Soomaalina ma kala maaranto Ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala annaga Soomaali naga dhigay magaca Soomaaliyeedna siiyay cidii Soomaalinimada ka diidanow meeshii ku dhaantay aan Soomaali aadan doonaynin haddaad ka bixi karto orada iska bedel
haddaad bedeli karto weeyaan anuu hadalkaygu saas wey maaha in la labalabayo soomaali baa iskale soomaalina ma kala maaranto haddii inagu aynu ku heshiin weyno sistamada kale lagu heshiinay inaga dhexdeena kula heshiinayno dadka soomaaliyeed wixii ay soo saaraan baan la qabnaa aniga marka aanoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolada galbeedka waqooyi galbeed weliba galbeedka waqooyi waxaan aqoonyaaniinta siyaasiyiinta afkooga ku hadlaya waxaan leeyahay annagu soomaali baa iskale soomaalinimadana diyaar baanu nahay wax shuruudaanu ku xidhayna ma jirto horena shuruud looguma xidhin goboladaasi markii la madoobayey maantana shuruud ku xidhin mayso ciddii doonaysa markaa in ay tiraahdo wax yaroo inagu war shalay markaan taa dhisnay nabad baan u dhisannay nabad iyo wanaag inaynu helno maartay ayaanu u dhisannay laakiin ma ahayn waxaynu ku wada heshiinay oo muqadisa maaha kitaabka qur-aanka muqadisa qowlka rasuulka iyo qowlka ilaahay baa subxaana wa tacaala muqadisa ciddii doonaya inay ka dhigto ha ku quus qaadato ma jiro arrintaasi gobolada ma suurto gelayso kamana soconayso muusena mid baan u sheegayaaye waxaad iska laaqanaysa iyo qolada maamul anu waan ogahay dadka soomaaliyeed degan dhinacaa degan soomaali iyagoo hargeysa jooga puntland bay baasaboorka u doontaan iyadoo puntland iyo soomaaliya ay haddana puntland loo doonanaya baasaboorka dadka safiliyaanku xumaani kama dhaxayso waana dad soomaalinimadu ku weynta laakiin cidda wax wadaa waa niman maaragtay isoo sheeg doonaya kiishkoogu ilaa laas casayre ilaa laas kaambooniya loo doonayuun system ay wax ku cunaan doonayay markii horena xadhig ku xidhnaayo xadhigii ka furtay muxuu yidhi maxamed sabir allahu naxariis been ma allahu naxariis qofka hadallada hadhaagu ka tago in la sheegaa muhiima wuxuu yidhi yaad kaga timid baa la yidhi soomaaliya wuxuu yidhi ummad jeel ku jirtay ayaa jeelkii ummad walwaalanoo jeel ku jirtay baan xadhigii furtay buu yidhi oo jeelkii goostay sidaasay dowladdeydii u burburtay buu yidhi waana run ummad meel ku jirto uu ku xidhaa iska ka celinayo oo dhibaatada ka celinaya ayaanu aragnaa uu ka mid yahay weliba muuse iyo siiraayo aafo qaran maxamed baleeg ninkay shalay toole uu ka cabanayo ay lahaayeen annagu waxa weeyaan iyo soo sheegaan musuq maasuq iyo dhibaato iyo dil iyo xumaan buu noo geystay maxaa wax bedele maa la arkay wax bedele ma hayno wax bedelo wanaagsan hadday koonfurta tahay iyo hadday waqooyiga wax bedele lama hayo anigu taas waxaan leeyahay horena waan u sheegay imika halkana waxaan ka jeedinayaa maaragtay ii soo sheeganaa araar yar baan ka jeedinayaa oo maaragtay geeraar yar ah wuxuu markaa leeyahay maaragtay waxa bedelmay dhaqankii bulshee baydanaan jiray waxa soo burqamay ceebihii badi daboolnaayo waxa baashay dhaqan dooriskii baalashuu fidiyey bahwadaagta soomaaliyeed kaan ku baranay sidii boqorkii loo daawan jiray bilixsamaantiisa ma bedeli karaaye rag baa been hingaadsaday ma bedeli karaaye rag baa been hingaadsaday waa waxa baalasha albaabada waxbarashada albaababkii u xidhaye hay-adaha samata bixintooda in ka badan inay yimaadaan waa la baalmaraye ee bulshay waa su'aal bulane jawaab faafiya ka bixiya marka waxaan leeyahay halkaa markaan leeyahay markaasi intaa hore ayaan markaa ku daynayaa waxaan leeyahay waxa bedelmay dhaqankii bulshee baydanaan jiray waxa soo burqamay ceebihii badi daboolnaaye waxa baashay dhaqan dooriskii baalashuu fidiyey bahwadaagta soomaaliyeed kaad ku barateen sidii boqorkii loo daawan jiray bilicsamaantiisa ma bedeli karaayo rag baa been higaadsaday anigu waxaan ahaa dowladdaas markay burburtay 17 jir baan ahaa ragga xilliga xanaqaadkan ahaa qof xilliga xanaqaadkan taagnaa waan garanayaa situationkan xilligaa ku jirnay iyo maanta lagu jiro qofkan waxa maanta lagu jiro garan waxa soo socda ma garto nimanka markaa maanta ii soo sheeg u ololeynaya haysta aafo qaran uu ka mid yahay ma garanaysaa gudoomiyaha sanamna ahaa Somali National Movement maxay u dagaalantay waa qaabka imka weela fuuna u dhaqantay weeyaan sign waan idin sheegay isku mid weeyaan SNM way baxday markay baxday soo gashayna wadankii markay qabsatay isbedel kuma iman maxay bedeshay
maamulkii systemkii way burburisay wax ka sii daran bay naga sii tagtay casharo badan oo aan waqtigaa jirin oon qofku kula soo bixi karaynin ayaa yimid sumcadna adduunka dusheedii kuma laha oo sharaf kuma yeelan oo maaragtay soo sheegay ixtiraaf kama helin waxay raadinayeen iyo systemka iyagu dagaalan in la xil burburiyun baa la doonayay waa nin kursiga odaygunba kursiga laga ereenayay ummaddan baa la burburiyay waxna looma tarin marka aafo qaran waynu aragnaa muusana waynu aragnaa wuxuu yidhi dadka soo socda xoortuurtiisaan gartaa buu yidhi yaa waxaa la yidhi fiintu roobka soo socday kasii oyda waxaanu ka ooyeynaa oonu kasii cabaadaynaa oo sidii fiintii uga sii cararaynaa muuse wuxuu wato ayaynu ognahay siiraanyana waan ogeyn oo de horaaman arrintaa uga sii sheegaano siiraanya nin wax maaragtay maamul iyo wanaag dadka u wada maahee arrin manibolis ah oo lasoo sharaxo lasoo qurxiya la wadaaye dadkunbaa lagu sii kala fogeynaya meeshana waxa la doonaya wax kale nimankan uma socdaane nin walba kiish buu wataa kiishkiisaasuu buuxinaya anuu mar horaan idhi ciddii maqlaysa waktigaa maalintaasi south african ku noolaa south african arrintaa ka yidhi arrintaasi markaas ololaha wadii labada olole doorashadii hore ee laga qaaday uu ku jiray baan anuu hadalkaas weliba idhi imikana waxaan leeyahay warniyow soomaali ma kala maaranto nimankana way og yihiin iyaga naftarkiisu uu ogyahay laakiin wuxuu isleeyahay intaan system iyo wanaag iyo inay soomaali isku noqon bal wax sii gooso arrinta maaragtay muuse baloorka keenaysa inuu baloorka keeno meelo badan inuu goosto dhul badan oo kiish badan maaragtay samaysto tashow dhaqaalo badan ka yeesho ayaa la rabaa annaguna taasaanu diidanahay gobolladayada waxa weeye gobolka awdal waa in dad baa u kacay suldaan wabar baa u kacay annaguna waan garab taagannahay inta aqoonta iyo caqliga laba waan garab taagannahay shalay haddaan somaliland annagu dhisaynay oo aanu nidhi umaanu dhisin cufti dadka walaalaha soomaaliyeed in maaragtay lagu gadaafeeyo xumaan lagu geysto lagaga hor imaado imikaan leeyahay waxaanu u galnay nabadayn inaan inagu nabad dhexdeena helno waa taa lagu naaloonayana cidda burburinaysa nabadii burburisayna waynu naqaanaa buu yidhi ciddii awalba tii hore burburisay ee dowladdii soomaaliyana ka hor timid ee burburka keentay danaheega mooyaane danta kale aanan doonaynin dana shaksiya dana guud loo burburiyey maantana dana shaksiya ambad loo burburinaya iyadoo qabaa'il la wato dhinacyada laga wato la leeyahay maaragtay maska qalwadii mas baa galay markaa annaguna taasaanu ka soo horjeednaa shalay toole nimankii dhisay anu waan ka mid ahaa waanu leeyahay maantana anagaa burburinaynaa cidda haddii aanad aaminsanaanaysaan ama aaminsanaada ama aaminsanaana haddaad u arkaysaan in waxa laga qaadaynina wasuma wallaahi baan ku dhaartee wasuma wallaahi baan mar labaad ku dhaartay ilaahay baa subxaanahu watacaala ay abuurtaan ku dhaartee in aynuun halkaasi muuse ka talinaynin idinkuna aan joogaynin xumaanta haddii halkaa ciidamada gobolada owdal la duldhigay ee labada guta ah uu muuse ka soo qaadi waayo oo xal ka dhigtay inuu meel fiican ka raadiyo annagu kala saari mayno soomaali waa qabaa'il wada degay ahaayeen wanaaggii sharaftii hadday deeqi weyday 30 sanaanu soo samraynay oo aan idii dulqaadinaynay oo aan wax warba xeerinay xeerid way dhammaatay wax la xeerishaa muuse way dhammaatay lama xeerinaayo reerkaagaanu ka bilaabaynaa war wallaahi inaan arrintaan soconayn reerkaagaa laga bilaabaya suma wallaahi baan ku dhaartay inaan lagu wada degnaanayn arrinkaasi ballanna weeyaan haddaad aaminsan tahay ninka halkaa ka soo hadlaya waanu ku tusi doonnaa suldaankana annagaa garab joogna cidda daba socotay lacagta ku bixinaysa ee doonaysa maaragtay weliba waanu ognahay 4 nin ee ganacsato maaha waxa weeyaan iisoo sheeg waxaa la idhaahaa waxa weeyaan iisoo caashiqushi bay ka yihiin meesha nimanka ganacsatada ee hargeysa jooga waxay soo qaadaan bay burama ku iibiyaan iyagaana lacagtii profetkii helayeen ee faa'iidadii helayeen ayaa la yidhi qasab ku keena cashuurta idaguna bixiya waanu ognahay aad muuse caynaani maaragtay ninka la yidhaha iisoo sheeg waanu ognahay muuse caynaan
waan ognahay maaragtay baqaarkii maaragtay isoo sheeg ninkii ka dhintay maaragtay la dilay waan ognahay waxay ahaayeen niman faashlayaasha lacagta laga qaadayo ee magaalada Boorama cashuurta laga qaaday la doonayo askartan in loo geeyo iyagana inta laga qaado lacagta laga qaado la yiraahdo bixi lacagta bixiya qasab wallahi gurigaaga inuuna joogaynin moose gurigaagaan kugu imanaynaa kan yare odaygii ka dhintay Allah u naxariisteena lagu dayn maayo gobolada awdal cashuurtooda iyo systemkooga sida aad u bixinaysaan marka iyaga dhex joogtaan waa laga kari waayay cashuuro waad bixin kari weydeen dadkii gobolada meesha joogan in la cileeyo laga markii maamulka yare kooban ay samaystaan 91 94 la sameeyay saldhiga yar la sameeyay la yiri war nimanka tuugtiyo waxaan wax dhibaateynaya carruurtan maartay aan qabano system u sameeyno bakhaarada nimanka joogana lacag ha laga ururiyo waadigi diiday mana cashuuro hebel cashuur laga qaadaya diiday maanta waadiga bixinaya maxaad ku bixisay waadiga qasab ku bixinaya waxaan marka halkan ka soo jeedinaya gobolada awdal dadka lacagta bixinaya biyahan UNDP da gelisay hargeysa lagaba soo galin muusana nooma galin shilin lacagoo bixinaysaan ma jirto ina xadina waxaad samaysaan meel ku xidha shaqaalaha ninka haddaad iska qaban weydaan ninka bada saabka ah ee maartay soo sheegan alaabta soo gashay iyo muqaadaraadka magaalada soo galana lacagta kule habeenkii gurigiisa ku cuna waan ognahay magaaladaasi haddii bada saab laga dhigo nin dhinaca laga soo galo muqaadaraad lagama waan ognahay yaahooba hore u joogay oo yaahow dadkuma waa taqaanaan oo reewdal idii sheegi mayno reeyahow waa taqaanaan ninkii dee rubaax la oranayay laakiin dadkaan garanayay baan u sheegaynaa rubaax yaahow baa loo yaqaanay waad ogeydeen ninka muqaadaraadka magaalada soo galiya ninka xun buu ahaa fasaqa magaalada baray ee nimanka muqaadaraadka soo galiya saaxiib la ahaa oo Ethiopia laga soo galin jiray muqaadaraadka haday tahay iyo soo sheeg carruurteeni magaalada Boorama cid waxa isticmaalaya ma jiraan dad intooda xariir tahay baa jooga oo dhiganaya iskuulada iyo jaamacadaha dhigta laakiin waa meesha magaalada laga galiyo halka inta la soo galiyo dabadeedna wadan meelaha kale laga geeyo weeyaan anna haday boosaaso tahay haday tahay berbera tahay hargeysa tahay laga galiya hargeysa lagu cabaa khamriga Ethiopia laga soo galiyo Boorama la keeno cashuurteeda waxa iskale mashruucaas iskale yaahooba iskala kana iskala rubax maantana waxa iskala Cabdiraxmaan ba iskale waan ognahay rag gaaruna ku shaqaystaa nimanka lama qabto shirkadaas lama qabto shirkadiina waa baro kale weeyaan ninkii la oran jiray ina warfaa hargeysa soo galin jiray ma garanaysaa ay soo sheegeen waa tiyo kale waynu ognahay xumaanta halka ka jirta markaas nimanka noocaasa cidda deysanaysa doonaysa baga u furanaysa de waxa weyn in la u doobiyo xoog buu ku joogaa Soomaa annaga ka saarayna ballan baanu ku qaadnay magaalada Boorama hadii ay ka bixi waayeen Cabdiraxmaan meydkiisa dhex yaala Cabdiraxmaan meydkiisa dhex yaala taas waxa weyn haduu haysto inay maartay dad shisheeye inay joogaan way kula joogan suldaan Gadabursi waa wada suldaan wabar dhammaan say u dhan yihiin waxa halka Boorama ka jooga ka agtaada jooga ka kula qayraya ogow haddii meesha aad ka tagi weyday inaad ku dhimanayso annagana waxa weeyaan cid diyaaran muuse systemkiisa iyo Somaliland there is no Somaliland wax Somaliland la yiraahdo awdal kama shaqeynayso this is the awdal land waa dhulkii reer awdal waa Soomaali baa iskale waa dhul Soomaaliyeed ciddii Soomaalinimada aaminsan baan anagu soo dhaweynayna laakiin adiga Somaliland iyo waxa la wareegaysanayso gurigaaga ku maamulo hargeysa